kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka iyo Gado wakiil ka socday wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo madaxweynaha maamul goboleedka Azania Maxamed Cabdi Gandi dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb galay kulankan ayaa waxay si aad isula darsayeen sida ugu habboon ee maamul wanaagsan loogu sameyn lahaa goboladaas loona garab istaagi lahaa maamulka hore loogu dhawaaqay oo loo dhisay goboladaasi kulankan oo haamidood cilmiyada ayaa waxa ka soo baxay qodobo waxaana saxaafadda u akhriyay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyagu qayb ka ahaa mas'uuliyiinta kulankan ka soo qayb galay iyadoo xubnahaasina uu shirku isaga soo dhaxsaaray si ay ula hadlaan warbaahinta halkan lagu shiray maanta xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka iyo goboladan soke ee koonfurta Soomaaliya waxa lagu heshiiyay oo la isku raacay qodobada halkan ku qoran qodobka koowaad mahadnaq ayaa halkan looga soo jeediyay dawladda Kenya iyo cid kasta oo gacan ka geysatay howlaha socda ee ka socda maanta goboladan soke ee Jubbooyinka ee ku aadan koonfurta qodobka labaad waxa weeyaan dhamaystirka dawlad goboleedka in la dhamaystiro wixii bilaabmay oo howlaha halkan ka socda in la dhamaystiro howlaha iyaga ah sixid farsamo iyadoo lagu dul shaqeynayo ahdiga dawlad goboleedka ahdi baa halkan la keenay ahdiga dad baa ka soo shaqeeyay looma dhaneen marka waxa lagu heshiiyay in loo saaro guddi farsamo wixii inta ka badan marka guddiga farsamo ayaa ka shaqeynaya iyaga ayaana soo celinaya iyaga ayaana marka waxa weeyaan soo bandhigi doona markaas wixii lagu darayo ama la qaadanaya wixii ay soo ka soo shaqeeyeen waxay wax ku fiican yihiin in waxa la bilaabay inay noqdaan waxa laga wada tashtay oo dadkoo dhan ay wada dhageen runtii markii laga hadlo waxa saara meel dhali karo laakiin waxa hadii la yiraahdo cid kasta meesha joogto deetana maamul baa sameeyay waxaan ku dhawaaqaynaa ma fiicna kullay maanta waxaan isusnaa marka wixii jiray oo hore loo sameeyay oo walaalaheen ay hore u sameeyeen inaan dib u saxno isla anbaqaadno isku raacno wixii aan ku dari karno ku darno dhamaystirkeedana ay Soomaaliyeed dhan inta goboladaas degan waxaan leenahay gobolada kale Soomaaliyeed oo walaalaheenan inay nagu dayo runaantii sida la wada dareemayo kulanka maanta ka dhacay magaalada Nairobi ujeedooyinkiisuna waa ahayd in laga tashado dhibaatooyinka ka jira wadanka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaanna goboladan koonfurta Soomaaliya ayaa si wanaagsan iyo jawi afgarad oo fiican buu shirku ku socday saacadihii uu soconayay isla markaasna say sheegaan saaxiibadeedii iga horeeyay hadalka in malina loo jeediyo dawladda Kenya iyo cid kasta oo ka soo qeybgashay halkan ama soo qabanay oo ay kamid yihiin xildhibaano Soomaaliyeed waxa la isla wada dareemay oo dareenka guud ku saleysan yahay inay jirto baahi guud oo deegaamadan koonfurta Soomaaliya in xalkeeda la raadiyo isla markaasna laga gudbo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka jira inay soo turxaan bixiyaan sidii maamul mideysan oo ka saara deegaanadaasi mushkilaadka siyaasadeed loo dhisi lahaa iyo waliba in ay dib u eegid ku sameeyaan ahdiga qabyada ah ee loo sameeyay maamul goboleedka Azania oo isagoo ahaa mid si weyn loo soo diyaariyay maamulka Azania ayaa isagu qayb lixaad la ku lahaa diyaarinta kulankan isu keenida xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanadaasi si markaasi ay fikrado mideysan uga helaan sidii maamulkoodu uga hirgeli lahaa deegaanadaasi لبان عبد السلام Somali Channel Nairobi